maanta waxaan jeclaystay inaan hal qodob ka idhaahdo telefoonka sidaynu maxbuus ugu nahay isticmaalka telefoonka oo waqtigeena inta ugu badan aynu u gelino oo laga yaabo daqiiqad kasta aba 10 daqiiqo kasta aynu telefoonka furayno eegino guriga markaynu joogno sariirta markaynu joogno asxaabta markaynu la joogno xaafadeena markaynu joogno taas waxay dhalisay qofka inuu noqdo qof uu ku yar yahay focusku tarkiisku oo hadduu qofkaas shaqeynayo mar walba jaam maskaxda kaga jiro hadduu guriga joogo mar walba maskaxda ka daalan yahay jaam ku jiro marka dhowr talaabo oo aan anigu shakhsiyan qaadayo oo si aan ku yareeyo ayaan doonayaa inaan la share gareeyo number 1 oo aan hore u sameeyay waxaan sameeyay notificationada oo dhan iska xidho wixii daruuri ah shaqo ku saabsan mooyee sida WhatsApp-ka laakiin notification-ka markaa iska xidhay waxaan ka raystay in waxyaabo aan u baahnayn ay attention-ka qaataan ama wax shaqada ku jira message soo dhacay oo qof dantiisa ka hadlayo notification soo dhacay qof baa postigaaga la kiray waxyaabo aan dan kugu jiro distraction taasi wax bay iga tartay laakiin email si wada fiican imaka waxaan tijaabinayay in aan guriga markaan tago because anigu inta ugu badan aan isticmaalo markaan guriga tago inaan telefoonka aan kaga tago gaariga aan guriga la gelin amba aan qolka la geeyo aan qolkayga la tigin ruuxantii taas wax weyn bay iga tartay maskaxdayda in badan bay ay digtay waxa ay soo noqday macnaa inaan fikiro waxyaabo badan ka fikiro in markaan habeenkii si seexanayo oo intaanan gamin ka hor ay maskaxdaydu fresh tahay oo ideoyin badan ay soo saarto oo aan markii hore chance ka heli jiray saan gacanta ugu hayo telefoonkan gami jiray sidoo kale waxaan ku bedelay markaad caado bedelaysid waxa muhiim ah inaad wax ku bedeshid aniga waqtiga ugu muhiimsan ee aan fikradaha generate garay ama fikradaha hela waa marka intaan si seexanay ka hor 30 minute aan soo jeedo marka tii waxaan ku bedelay inaan horta indhaha ku yara daaliyo book aan sariirteeda madaxeeda book dhigto aan akhristo book markaan ka daalan jiifsado iyo book kale notebook oo markaa wixii igu soo dhaca aan si degdeg ugu qoran karo waxaan rajeynayaa inaynu ka baxno xabsigan uu ina geliyay telefoonkeenu oo aan maskaxdeena in badan isticmaalo si ay fresh noqoto asxaabteena waqti badan la qaadano family-geena iyo xaafadeena aan waqti badan isu helo waxaan kugu markaa challenge gareynayaa qof walba oo daawada bal inuu isbedel ka sameeyo si uu less waqtigiisa ugu koobi lahaa isticmaalka telefoonka aad baa mahadsantihiin